بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن دمان باخيارتا شرفta leh ee ku xidhan arag media production ku soo dhawaada barnaamij cusub oo inagu magacdaray taariikhda fanaanka barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa fanaan u dhashay qoomiyadda Axmaarada oo qaadi jiray heesaha Soomaalida qaar kamida sidoo kalena Soomaalida jeclaa محمد عوالة صالح وحوها فنان عانه انتو سنتوبت كينين سيدو او كالنا aanu noqonin manaashin nashiidooyinka luuqada Axmaariga ku qaada wuxuu ka soo jeeday muslimiinta qoomiyadda Axmaarada waxaana uu ahaa nin Soomaalida jecel kooxda durdurbaan ayuuna asxaab laha maray Addis Ababa joogeen heesaha Soomaalida oo telefishinka Itoobiya muuqaal ahaan looga aqoonin ayuu stuudiyaha ETV ee dalka Itoobiya luuqada Soomaaliga kor u qaaday waxaana uu ku dhuftay heestii bilanay galgacaylku waa sidoo kalena aan ayuu ka dhigay heesta oo Itoobiya dhawaan laga wada yaqaana Allah u naxariistay Maxamed Cawaale 23kii bisha 8 2021 ayuu geeriyooday aan idin la wadaaga qisada sida uu ku toobad keenay ee uu ku soo hanuunay habeenada kamid ah isagoo neyd kalaab ka tumayo hawada la wada saaran yahay ayuu mid sakhraansan yiri kana ayuu ahaa markaas lagu yiri waa Maxamed Cawaale Saalax waxaanu sakhraanka yiri oo Maxamed meeshan maxaa keenay ayaa dhagta fanaanka Maxamed Cawaale Saalax ku dhacay waana uu ka seexan waayay waana uu iscanaantay waxaana uu baxay khuruush 40 cisho ah waxaana uu raacay jameecad tabliiqiin ah markuu soo noqday waxa uu soo saaray qasiido la magac baxday tawba oo nasrada la tumaayo waxaana la dhahaa munaysa waana qasiidooyinka afka Axmaariga ee Itoobiya aad looga dhageysto اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء سبحان الله كريم يا مولا درس الكرب والكنوم ولا أستغفر الله سبحان الله كريم يا مولا درس الكرب والكنوم ولا أستغفر الله waxa uu noqday manaashin nashiidooyin badan soo saara waxaana laga waayay jirin salaada jamaacad 40kii cisho oo khuruushka u baxay waxa la sheegay inuu habeen kastaba dambi dhaaf inuu Ilaahay weydiisan jiray asagoo ooyaya Allah u naxariisto oo jannatu firdawsaha ka waraabiye Ilaahay marka uu toobada kula rabo waa sidan gaal sikhraansan ayaa fariinta lagu soo dhiiba waa hagaag qormada waxa qoray Maxamed Muuse Yuusuf